nin walbo wiilkaaga aad og tahay soo qabo waa la waayayaa dadka kalena waa yaraanay 200 oo nin 3 maalmood waa inaan ku helnaa waa la socotaan laascaan xabadii way socotaa hadda ogaanaysaan waxaanu difaacaynaa waa garowe laascaan waa goob dagaal ana tolka codsaday midka koobaad waa amniga amni hadii la waayo nolol adduunna ma jirto cibaadana ma jirto waayo qofku dhiig buu gelaya hadduu doono khalada waqti baa uma hayo salaadiyo xabad baa ku socota mid dagaalka hadda shahaada qaadasho ah waa jira waa kaasoo kale ilaahay jannadii hageeyo Sheekh Abdul Qaadir baa ka dhageystay mar ay kal shaale ku soo weerareen dhul bahantaha ataanu tagnayo 2 goor iyo maaqan waxaan tagay wuxuu yiri baadil weeye dhiigaas wuxuu ku daadanayaa aqoonsi baan ku raadsanaya waa baadil buu nimankaas anigu waxaan qabaa ninkii ku dhinta inuu shahaado qaatay asxaabtii siday gaalada uga shahaado qaadan jireen inuu shahaado qaatay baan qabaa culimadeennuna waa u fidiyootay horta taab maskaxda lagu hayo halkaas waa halkaa gudaheena wiilasha jirida ah oo wax dhaca oo wax qaata oo khamriga cabaya cirka kama iman wareeda dad baa dhalay baa Soomaali u baadashay hadda jirida markii la yiraahdo la qabto dadkeena nin kasta oo wiilkiisu ku jiray ama ku adeerka waxa ku jiray waxa moodaa inuu ismoogaysiinayo oo uu leeyahay jirida hal la qabto wiilka hadduu u yeero xabsiga geliyo ya oo u dhiibo xukuumadda isaguna waa baxsanaya dadkuna waa ka baxsanaya masiibadaani meel kale kama imaan dadkeenay ka timi raggiina halka fadhiya waxaan rabaa nin walbo wiilkaaga aad og tahay oo ama walaalkaaya ama aad adeer u tahay ama aad dhashay ama aad qaraabo la tahay soo qabo waa la waayayaa dadka kalena waa yaraanaya maanta 100 nin baan halkan ku ballanay 100 ka nin waxaan rabnaa bal horta waxa la yiri nintiisa badar yeela walaalkiisna tiirsha horta inagu gudaheena an islaamino dibkii kale jira inana yeynaan geysan wixii kale to aynu la hadlana Allah karana ka tala bixino inaan dibkaas la geysan oo shidada la iska daayo oo dagaal magaalada laga ridin oo magaalada waxa lagaga noolaa waxay ahayd nabadgelyadaas ummadda ilaahay oo imanaysa waxa hay'adaha shaqeynaya ganacsatada ku soo korodhay adilo ku reeyo guryaha la dhisanayo dhulka oo ganacsi waa isla ognahay inta fasiro hadda fasaaxad kuma dhamayn karo nimcada ku jirta nabadgelyada laakiin ragga halka fadhiya waa inta dadka labeentilaad kulligii waa garanaysaa nabadgelyada laga shaqeeyo oo nin walba meesha joogtid isu taag waxun baad ku beeganto qaban kada dawladdu roob la dhac maaha meel walba ma joogto waa askar xariya ka soo baxda ama station ka soo baxda ama meel kale ku jira shacabku meel walba isaga taagan intenaasi haddaynu isu taagno inaynu nabadgelyada ka shaqeyno daacad ka noqono waa ogaan doontaan attention-ku hoos buu u dhacaya markaad adiguna dhibtaada ceshato kii xigta aan la taliso ka qabato nabaddu toos bay u imaanaysaa taasi waa qodobka kale oo labada ahi waxa weeye markuu faraha iga saaro wixii dambe laga daba geeyay bal ha joogtee gaadiidkay raacayaan iyo shidaalkooda iyo hawlahooda waxa weeye waa laga wareegaya 200 oo nin 3 maalmood waa inaan ku helnaa waa la socotaan laascaan xabadii way socotaa waana dhaarsan yihiin maanta in la kala haro hadda waxaad ogaanaysaan waxaanu difaacaynaa waa garowe laascaan waa goob dagaal guryaha intii burbudhay horay mooyee intii kala shalay burbudhalay muddo shareecaynuna uga baahanna maxaa jira waa degdeg gurmadku waa badanaya dagaalku hadduu sii socdo inagoo dhan baa gelino qoryaha qaadanayna arrinkaas ha laga dhabayo ragga ha la keeno nabadgelyadeennana waa sidaa aan u tilmaamay haddii wixii ku kaco rabbina aqbalo waa rumooba